dowladdu mar walba waxay u taagan tahay difaacidda dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo cadaaladda in la difaaco iyo horumarka iyo xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed inay mar walba difaacdo. Xarunta shacabka Soomaaliyeed maantayto inay fursad u helaan inay hoggaan cusub oo waddankan wax ka bedeli kara oo aragtida sax ahayd leh ay ka dhaxdaydaan oo ay ogaadaan in ay jiraan dad aqoon-yahana khibrad dheer leh waddanka muddo dheer ka soo shaqaynayay wax badan la socda ay hadda ka mid yihiin dadka tartamaya aan siyaasadii hore fashilantay Soomaaliyana qayb ka ahaan jirinin xilal horena aan soo qabanin laakiin hadda ay ka muuqato mas'uuliyad iyo qaangaarnimo siyaasadeed oo runtii aan danaynaynin waxyaabaha raqiiska ah ee siyaasiga Soomaaliga lagu bartay oo ay ugu horeyso musuqa oo ay ku xigto danaysiga gaarka oo ay ku xigto kursi jaceelka oo aan rabno inaan waddankan wax badan ka bedelo mustaqbalka haddii Ilaahay aan ku guuleysano in arrimaha doorashada laga gaaro xal degdeg ah si waddanka aysan ugu dhicinin isku horimaadkan iyo khilaafkan loo soo abjaro oo xukunku ugu wareego si nabadgelyo ah. Ninka hogaamiyaha ah waxaa laga rabaa inuu ku guuleysto inuu heshiisiyo dadkiisa inuu wixii lagu heshiiyey ixtiraamo madaxweynaha mudxeledkiisii dhamaaday oo haddana sii danaynaya inuu si xaaraana xukunka ku sii joogo oo tuhun weyn aan ka qabno inuu dictator yahay raba xukunka inuu xoog iyo ciidamo iyo wax isku soo abaabushay oo uu ku fadhiyo daacadna inuusan ka ahayn baan weli ku tuhunsannahay doorasho xor oo xalaal oo dhan loo yahay inay dhacdo haddii musharaxiinta qaar ka mida loo ogolaado miiska wadahadalka annagana waynaanu naloo ogolaado way xaq baan u leenahay Prime Ministerka arrintaas waanu ka codsanaynaa waanu weydiisanaynaa waxaan inaan ku baaqano in la ballaariyo arrimaha masiiriga marka laga hadlayo ka qaybgalkooda oo dhammaan dadka stakeholderska ama saamiliyada siyaasadda ha noqdeen musharaxiin ha noqdeen bahda ururada bulshada ha noqdeen dadkii kale loo arko inay mujtamaca Soomaaliyeed muhiim ka yihiin laga qayb geliyo oo aysan noqonin in yar mar walbaba oo ay ku adag tahay inay heshiiyaan talada dalka ay u afduubnaato.